kulan wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada qisadii jaceyl ee Mahadi Maande qaybteedii 13aad balse intaan u gudagelin qaybtani waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad muuqaalka like saarto siina share gareyso si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. qaybtii hore waxay noo mareysay Maandeeq oo tiri argagax iyo afariir ayay igu noqotay meel aan jooganan waan isgaran waayay naftu inay iga sii bixaysa ayaan mooday cirkuna inuu igu soo dumay ayay ila noqotay alla tanina ma ii dambeysay ayaan ku cataabay. Maandeeq argagax iyo afariir ayaa la soo diristay iyada oo jareynaysa oo wadnaheeda garaaciisa banaanka laga maqlayo ayay taleefankiisii wacday balse wuu dansan yahay. haddana waxa ay wacday wiil ay saaxiibo yihiin salaan kadib wuxuu ku yiri Maandeeq saaxiibkaaga wuu guursaday wuuna aqalgalayaa caawa insha Allah. maalin hore ayuu ii sheegay in aad kala harteen wuxuuna igu yiri gabadhaasi Maandeeq ah saaxiibo ayaan nahay aniga balse wax jaceyl ah ma naga dhaxaynin waana gabar aad u fiican oo sharaf iyo ixtiraam leh aad ayuuna ku amaanayay. Maandeeq hadalkaasi markay maqashay ayaa wadnihii qarxi gaaray garaaca wadnaheeda ayaa cirka isku sii shareeray madaxa intuu wareeray ayayna jilbaha dhulka ku dhufatay markaas ayaa miyir ugu dambeysay dhakhtarka ayaana loola cararay. xilli dambe ayay soo baraarugtay iyadoo dhakhtarka taalayayna is aragtay waxay dib u celisay xusuusteeda iyadoo is leh talow wixii marun bay ahaayeen mise waa riyo. ilaa horriye ka dhig ayay qalbigeeda iska leedahay marna waxa is leedahay miyaad waalatay maxaa kugu dhacay maskaxdaadu ma degana miya riyo iyo cadaan miyaad kala garan la'dahay. Maandeeq weli baaritaan laguma sameynin oo dhakhtarkii ayaa maqan balse kuwii gargaarka degdega ayaa arrinteeda ku mashquulsan oo si habsami leh u gudanaya waajibkooda inta uu dhakhtarka ka imaanayo. Mahad caaw wuxuu isku diyaarinayaa aroos oo la galayo Maryan oo iyadana soo qiyaantay nin ay dhowr sano lacagtiisii ay cunaysay. mustaqbal ifay iyo qoys jaceyl ku dhisan ayay arkaan wax walban ciyaar ayuu leeyahay aroos qurux badan way diyaarsadeen habeenkii arooska ayuu asxaabtiisa oo dhan ku wada casuumay arooska. wuxuu iyadana casuumay gabadhii uu gurigeeda deganaa markuu dhaawaca ahaa ee Maandeeq ay ku haysay. gabadhii la casuumay way qaado weyday waayo waxay ogeeday jaceylka ka dhaxeeyay isaga iyo Maandeeq iyo rafaadkii ay la soo martay. markiiba waxay wacday Maandeeq waxaana loo sheegay in ay dhakhtarka taalo intay soo carartay ayayna dhakhtarka ugu timid. inta sariirtii ay jiiftay dhinac kaga fariisatay ayay waxay ku tiri hun jaceylkaagii aan saan arkay u soo dhaqaaleysay ayaa igu yeeray arooskiisa ee wax u jiraan ilaa nin abaal ma lehe. Maandeeq intaasi markay maqashay ayay intay mar labaad jilbaha dhulka ku dhufatay ayay kooma gashay. dhakhtarkii oo jooga ayaa baaritaan degdeg ah ku sameeyay xaafaddu waa ay naxsan yihiin xanuunka ku soo booday Maandeeq waayo xaaladda lama socdaan. jawaabtii ayaa la wada sugayaa isaga oo ehelkii iyo asxaabtii oo dhan ay meesha wada fadhiyaan ayuu dhakhtarkii soo baxay oo yiri hambalyo gabadha uur ayay leedahay oo waa xaamilo ee ka ilaaliya murugta iyo shaqada. la soco qaybta xigta doo rabbi raali ka noqdo daawade haddii aad nala soo gaartay gabagabada muuqaalka fadlan muuqaalka like inoo saar siina share garey.